sanado kadib Alan waxaa lagu eedeeyay qaniisnimo taasoo markaasi dembi aad weyn ka ahayd dalka iyo Ingiriiska halkii xabsi lagu xukumi lahaa waxaa la siiyay laba doorasho midkood. Assalaamu calaykum saaxiibayaal ku soo dhawaada channelkeena Khafiifo Bro. maanta waxaan idin wadnaa filim kale oo xiiso badan. filimkani oo lagu magacaabo Imitation Game ayaa waxaa lagu soo koobay nolosha dhabta ee Alan Turing. filimkan wuxuu ku bilaabanayaa Alan Turing oo yar waliba soo dhigta dugsi boarding ah oo ku yaala dalka Ingiriiska. iskuulkan sidoo kale muusan lahayn mid sahlan gaar ahaana carruurta ka duwan kuwa kale. Alan wuxuu ahaa cunug aad u caqli badan, maskaxdiisana waxay ku xirneyd xisaabta, sayniska iyo fikirka qotada dheer, laakiin dhinaca bulshada aad ayuu ugu liitay. Alan muusan ahayn ilmo si fudud oo la kaftama ama la ciyaara carruurta kale. fahamka iyo kaftanka intaba xitaa hadallada caadiga xitaa ma uusan la hadli jirin. sababtaas darteed ardayda kale waxay arki jireen la yaab weyn ku jees jireen midaas. mararka qaar xitaa way dhibaateen jireen. waxaan la arkayaa muuqaal ah Alan oo kaliis meel fadhiya wilbana isagoo murugay. sidoo kalena ardayda kale ay ka qaadanayaan buugaagtiisa macallimiintan aan u fahmin si buuxda. tanina waxay muujinaysaa siday bulshada mararka qaar ay u diido qofka ka duwan ayaga. markaani nolosha Alan waxaa waftiin u noqday saaxiibkiisii Christopher Macron, kaasi oo ah arday aad u caqli badan, qof degan oo adab leh, kana mid ahaa dadka yar ee fahmay Alan. markaani Christopher wuxuu arkay hibada Alan, wuxuuna la wadaagay jacaylka sayniska iyo xisaabta, wuxuuna Alan ku dhiirigeliyay inuu rumaysto naftiisa. markay wada joogaan Alan Christopher, Alan wuxuu noqday qof aad u furfuran, sidoo kalena war badan. Alan jacayl qoto dheer ayuu u qaaday saaxiibkiisa Christopher. jacaylkaasina wuxuu ahaa mid qarsoon maadaama waqtigaas la diidina saaxiibtinimada, sababtoo ah iskuulkooda lama ogolay in saaxiibo la noqdo. balse nasiib daro Christopher wuxuu ku dhintay xanuunkadiis ah weliba TB isagoona aad u da'aya. geeridaasina waxay burburisay Alan, welibana isagoo ka qaadatay qofka keliya ee fahmay. Alan wuxuu isku arkay kelinimo fara badan, sidoo kale wuxuu dareemay inuu noqday qof mar kale laga tegay. mar walba wuxuu naftiisa ku eedeynayay jacaylkiisa inuusan si fiican uga muujin saaxiibkiisa Christopher. mar kale waxaa soo muuqanaya Alan oo aamusan, welibana xanuun gudaha ka dareemaya, sidoo kalena uu qarsanayo. sidoo kalena waa ilmaan oo in karin qalbigiisana uu jaban yahay. geeridii Christopher kadib Alan wuxuu si buuxda ugu jeestay xisaabta iyo mashiinada, sidoo kalena wuxuu rumaystay in ay maskaxdu ka aamusan tahay, wuxuuna bilaabay inuu ku fakiro mashiino caqli leh. sidoo kale wuxuu rumaystay in maskaxda aadanaha la fahmi karo oo ayna tahay mid dab iyo welibana isagoo raba inuu burburiyo fikradaha bedelay mustaqbalka. mashiinkii ugu dambeeyay ee Enigma Breaker ayaa wuxuu ku sameeyay saaxiibkiisa Christopher, isagoona raba mar waliba inuu xasuusto saaxiibkiisa. mar kale ha ilaabina saaxiibayaal muuqaalkan like noo saartaan, sidoo kalena channelkeena Khafiifo Bro waad subscribe soo dhahdaan. markii uu bilowday dagaalka labaad ee adduunka, dunida waxay gashay xaalad cabsi iyo hubanti la'aan ah. Naaziga Jarmalkana waxay lahaayeen ciidan aad u xoogan, waxay qabsanayeen dalal badan, sidoo kalena waxay u xiriiri jireen si qarsoodi ah. sirtooda ugu weynna waxay ahayd mashiin weyn laguna magacaabay Enigma. waxaaba laga yaabaa inaad si weydiinayso waa maxay Enigma. aniga ayaa kuu sheegaya ee si qurux badan oo degan la yidhigisay bis. Enigma wuxuu ahaa mashiin qaranaya fariimaha, welibana isagoo isticmaalaya xarfo isbedbedelaya, sidoo kalena wuxuu leeyahay malaayiin waxyaabood oo isku dar, waxayna ka dhigtay mid aad u halis badan. koodhkan wuu isbedelaya maalin kasta, hal fariin ayaan loo bedeli karay kumanaan qaab. xitaa haddii maanta la jebiyo beri mar kale ayuu xirmaya. taasi waxay ka dhigtay Enigma mid aan la bedeli karin oo aad u khatar badan lana jibin karin. ciidanka Ingiriiska ayaa markaas waxay maqleen fariimaha Naaziga, laakiin ma aysan akhri karin fariimaha. taasina waxay keentay dhimasho fara badan iyo guuldarooyin dagaal. sidoo xalay dhibaatooyinkaasi dowladda Ingiriiska waxay sameysay xarun qarsoodi ah laguna magacaabo Belgium. halkaasina waxaa lagu aruuriyay xisaabiyaal maskax furan, sirdoon iyo dad ku xeel dheer luqadaha iyo calaamadaha. xaruntan waxay ahayd meel gebi ahaanba qarsoon, shaqaalan waxaa lagu dhaariyay inay aamusaan, qofna ma uusan ka hadli karin waxa ka socda gudaha. mar kale Alan meeshan loo soo diray welibana isagoo ku caan ahaa xisaabta, welibana isagoo leh fikir ka duwan dadka kale, iyo sidoo kale isagoo aaminsan in dhibaato walba loo heli karo xal. laakiin communicationkiisa aad ayuu u liitay. dadkan wuxuu la hadli jiray si toos ah, mararka qaarna si qalafsan ayuu la hadli jiray dadka. sidoo kale isaga ma uusan jeclan wadatashiga shaqo kooxeedka. tanina waxay keentay in asxaabtiisa ay ka caroodaan, sidoo kalena maskaxdiisa ay u arkaan inay tahay mid aad u dhib badan, iyo sidoo kale inay ku soo eedeeyeen inuu ku jiro ninkan kibir iyo isla weyn. Belgium waxay ku shaqaynaysay fikrad kooxeed, sidoo kalena wax walba in la wadaagaa oo laga doodo, sidoo kalena go'aanada si wada jira ay u wada qaataan. laakiin Alan wuxuu rumaysnaa in dadka qalad badan ay sameeyeen, sidoo kalena wuxuu aaminsanaa in xisaabta ay ka saxan tahay bini'aadamka. sidoo kalena wuxuu sheegay qof walba halkaas jooga inuu sareen qof isaga wax u soo kordhinaya. labadaasna waxay dhaawaceen niyadda kooxda, sidoo kalena xitaa waxay ku khasbanaadeen ay u rabaadeen inay ka buuriyaan shaqada. qaar ka mid ah xubnaha shaqaalaha waxay cabasho u dirsadeen madaxda. khilaafka Alan iyo kooxdiisaba, khilaafkaasi wuxuu khatar geliyay mashruucii Enigma. waxaan la qorsheeyay in Alan laga saaro Belgium, halka dowladdan ay bilowday inay ka shakiso faa'iidada joogitaankiisa. laakiin maskaxdiisa gaarka ah lama iska indhatiri karin. waqtigan waa uu socdaa, sidoo kalena dagaalku wuxuu u baahnaa xal degdeg ah. waxay muujinaysaa in hal abuurka iyo dabeecadaha
adag ee mararka qaar si xoog isku dhacaan. sidoo kale Alan wuxuu rumaysnaa hal arrin oo muhiim ah taasi oo ah bini'aadamka inuusan jebin karin Enigma laakiin mashiin oo kaliya inuu jebin karo. sababtu midaas uu aaminsanaa waxay ahayd Enigma wuxuu la malaayiin isku dhaf ah kula aaminsanaa maskaxda aadanaha inay daalayso sidoo kale ay sameynayso qalad laakiin mashiinku ma daalo wahmi ilaaba wax walbana si qurux badan ayuu sameyn karaa isagoona u xisaabin karaa si joogto ah. marka Alan wuxuu arkay in dagaalka lagu guuleysan karo maskax iyo mashiin lagu guuleysan karin qori iyo dagaal. Alan ayaa markaan wuxuu bilaabay inuu shaqadeeyo mashiin weyn mashiinkaasina wuxuu awood u lahaa isku dayo kumanaan kood ilbiriqsiyo gudaheeda inuu baadho fariimaha Enigma bilbas degdeg ah. mashiinkaasina wuxuu ahaa mid aad u weyn sidoo kale wuxuu sameeyaa sidoo kale wuxuu cunaa koronto fara badan. asxaabtiisa qaar ma aysan fahmin sida uu shaqeynayo waxaanu arkeen fikrad waali ah waxayna dhaheen dagaalkan haddii ku guul dareysto bini'aadam sidee uu mashiin ugu guuleysan karaa. shaki iyo diidmo fara badan kadib madaxda dawladda waxay u arkeen mashruucan inuu yahay mid aad qaali ah waqti badan inuu qaadanayo sidoo kalena aadan hubanti la'aan in aan laga baxo. waxayna isweydiin haddii uu fashilmo maxaan sameynaynaa dagaal baa socda sidoo kale waqtina ma haysano. xitaa waxay rabeen oo ay ku fikireen in la joojiyo mashruuca iyo weliba in Alan laga eeriyo shaqada. tanina waxay Alan gelisay cadaadis maskaxeed isagoona ka cabsanaya in la burburiyo fikradiisa. markaas isla hadlay haweeneydan oo lagu magacaabo Joan Clegg waxay tahay haweeney aad u caqli badan si dhaqso ku fahamtay xisaabta Enigma sidoo kale waxay aragtay wuxuu arkayay Alan. Joan waxay fahamtay Alan maskaxdiisa sidoo kale waxay siisay taageero maskaxeed sidaasayna wuxuu ku noqotay qofka kaliya si dhab oo fahmaa Mr. Alan. balse markuu Alan ka shaqeeyay naftiisa wuxuu dareemay cidlooyin fara badan balse Joan waxay ku qancisay hadallo fara badan welibana iyadoo ku dhiirigelisay mashiinkan inuu yahay mashiinka guushooda. kadib bilooyin lagu jiray cadaadis maskaxeed shaqooyin adag dila'aan iyo daal mashiinkii uu Alan shaqadeeyay laguna magacaabay Christopher wuxuu bilaabay inuu shaqeeyo. mashiinkan muuse hena qalab iska caadi ah ee wuxuu ahaa mid u shaqeeya si xawaare sare leh si uu tijaabiyo malaayiin suurtagal ah isagoon raba inuu helo koodhka saxda ee Enigma. balse maalin maalmaha kamid ah mashiinku wuxuu soo saaray fariin jalmar ah oo loo akhrin karo taasina waxay ka dhigan tahay hal arrin oo kaliya taasi oo ah koodhkii Enigma in la jebiyay. Belgebaagna waxay dareemeen shaqadoodii adag inay miro dhalayso sidoo kalena dagaalkay ka bedeli doonto midaan waxyaabo fara badan balse farxadooda ma aysan sii waarin ee waxay arkeen fariinta in ay tahay in mar dhow la soo weerari doono maraakiibta weyn ee dalka British. su'aasha adag ee isweydiin dawladda ayaa waxay noqotay haddii aan badbaadin maraakiibta maxaa dhici doona. mid kamid ah jawaabtu bixiyeen waxay ahayd mid aad u cabsi asigan waxay ogaan doonaan in koodhkoodii la bedelay sidoo kalena waxay isla markiiba bedeli doonaan Enigma taasi oo la micnaa dhammaan shaqooyinkii adkaa inay noqdeen waxba kama jiraan. kooxdiisa waxay ku qasbanayeen inay qaataan go'aan naxdin leh taasi oo ah kaliya in la badbaadiyo maraakiibta qaar kuwa kalena si ulkaca in loo dayaco si aysan cadowga u fahmin koodhka Enigma in la jebiyey. balse go'aankan muusan ahayn mid fudud waxayna fahmayaan dad aan waxba galabsanin meeshaas ku geeriyan doonaan balse waxay rumaysnaayeen haddii la ilaaliyo sirta Enigma mustaqbalka badbaadin doonto malaayiin. inkastoo uu ahaa go'aan qalbi jab leh haddana wuxuu noqday mid bedelay dagaalka. qarsoodiga Enigma uu sii jiray sidoo kale fariimo fara badan oo cadowga ahna waa la qarinayay taasi oo si weyn u dadjisay guushii xulafada dagaalka. kadib markii uu dhamaaday dagaalka labaad ee adduunka dadkii ka shaqeynayay Belgebaag oo hormuud u ahaa Mr. Alan laguma abaalmarinin sidii la filayay. sidoo kale dawladda Ingiriiskana waxay siisay amar adag taasi oo ah inay aamusaan inta noloshooda ka dhimanba loomana ogolaan inay ka hadlaan shaqadii ay qabteen. sidoo kale shacabka looma sheegin doorka weyn ay ku lahayn guusha dagaalka. kadib jebinta sirta koodhka taasi waxay ahayd sir qaran oo qarsoon waxaana lagu qariyay filal qarsoon muddo 10 sano taasi oo la macnaa Alan Turing in aan la aqoonsan intuu dagaalkaasi ku jiray. Alan ayaa markaan wuxuu ku soo laabtay noloshiisa caadiga isagoona sii watay cilmi baaris ku saabsan kombiyuutarada iyo sirdoonka macmalka ah ee AI. laakiin halkii laga taageeri lahaa noloshiisa waxay u leexatay dhanka iyo murugada. sanado kadib Alan waxaa lagu eedeeyay qaniisnimo taasi oo markaasi dembi aad u weyn ka ahayd dalka iyo Ingiriiska. halkii Alan lagu xukumi lahaa xabsi waxaa la siiyay laba doorasho midkood in la geeyo xabsi ama in la siiyo daawooyin kiimikaal ah oo soo celinaysa raganimada. Alan wuxuu doortay daawooyinka balse daawooyinkaas waxay burburiyeen jirkiisa waxay saameeyeen maskaxdiisa sidoo kale waxay sababeen niyad jab iyo caafimaad daro oo jirkiisa. Alan oo ahaa maskax cajiib ah markaan wuxuu bilaabay inuu dareemo kelinimo murugo iyo qoos uu u horay naftiisa lagama hadleen sidoo kale dalkiisana ma aysan difaacin waxaana laga hor istaagay inuu sii wato shaqooyin badan oo cilmiyeed. ugu dambeyn 1954 Alan wuxuu geeriyooday isagoo kaligiisa iyadoo aanan la siinin aqoonsi mahadnaq toona. waqtigaasina caalamku ma uusan eegin qofkaan aamusan inuu ahaa qofkii soo gaabiyay dagaalkii socday sanado qofka badbaadiyay malaayiin naf sidoo kalena qofka ka dhigay saldhig kombiyuutarada casriga ah. sanado kadib geeridiisii ayaa runta la sheeciyay. dunidu waxay ogaatay in Alan uu ahaa haliye dhab ah. ummadda Ingiriiskan waxay bixisay raaligelin rasmi ah magaciisana waxaa lagu xusay buugaagta taariikhda iyo cilmiga taasoo caddeyn u ah haliyeyada dhabta in aan la aqoonsan waqtigooda. laakiin ugu dambeyn taariikhda way caddeynaysaa Alan Turing wuxuu dhintay isagoo la ilaabay laakiin maanta wuxuu ku nool yahay taariikhda cilmiga iyo kombiyuutar kasta oo dunida ka shaqeeya. dambe filimka wuxuu ku dhamaanay iyadoo la cadeeyay Alan Turing kooxdiisa inay jibin koodhkii Enigma taasi oo soo gaabisay dagaal socday 2 sano sidoo kale taasi oo badbaadisay in ka badan 40 milyan oo qof. balse inkastoo guushaas weyn uu soo hooyay shaqadiisa waa la qariyay Alan looma aqoonsan haliyey ku dhintay nolol murugo iyo cadaalad darro ah. fariinta ugu xanuunka badan ee filimka dir ayaa waxay tahay qofkii badbaadiyay malaayiin qof isaga lama badbaadin. fariinta ugu weyn ee filimka dir ayaa waxay tahay haliyeyada dhabta badan lama aqoonsado waqtigooda. Alan wuxuu sameeyay wax bedelay dunida balse lama fahmin waqtigiisa kalena lama maamuusan waxaa lagu ciqaabay inuu ka duwan yahay dadka kale. haddaba saaxiibayaal casharadu filimkan ina
baraya waxay tahay duwanaanshaha dadka kale ma ahan daciifnimo. Alan wuxuu ahaa qof ka duwan dadka kale balse ka duwanaanshahaas waxay sababtay guul aad u weyn. guushana mararka qaar waxay u baahan tahay go'aano adag. badin la'aanta mararka qaar waxay keentaa badbaadinta malaayiin qof naftooda. cadaaladuna mar walba kuma timaado si degdeg ah. Alan wuxuu aqoonsan helay geeridiisa kadib, taasi oo muujinaysa in runta la qarin karo balse weligeed ba aysan qarsoomeynin. ugu dambeynna dadka caqliga leh waa in la fahmaa sidoo kalena la ixtiraama. wuxuuna tusayaa dadka ka duwan bulshada caadiga dhaqan ahaan iyo dabiicad ahaan ayaan ka hadlayaa. qisada ama sheekada filimkan wuxuuna barayaa qofka xitaa haddii caadi ahaan loo fahmi waayo in uu bedeli karo taariikhda adduunka. tan iyo filimkan intaan ku kulmeyno sidaa iyo nabadgelyo.